بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دمان أمة الصومالية waxaan rabaa inaan ka hadlo siideyntii ama wartagtay ku dhoodna soo gaadho sheegay in la sii daayay dabcasar waxaan aad iyo aad uga mahad celinaynaa xukuumadda fadhigeedu iyo hargeysa siideyntii samaysay dabcasar iyagoo ay dad sheegayaan in la tarxiilay balse aanu sheegayno tarxiilistu inay tahay dowladda wax u taala markaas aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa xukuumadda Soomaaliland oo dhaweynta ka yahay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ama aad xukuumadda fadhigeedu iyo hargeysa waxaan uga mahad celinaynaa siideynta ay siideysay walaakinta casar waxaan doonayaa inaan u jawaabo nin maalin sheeganaya inuu yahay mujaahid oo yidhi waxaan ahay gudoomiyaha jamciyadda SNM ee gobolka Togdheer waxaan oo sheegay inuu wariyo Coldoon aan u dhalay Soomaaliland odagaasna waxaan u sheegayaa adeer inaad ka waantoontid hadallada fanaxda leh ee keeni kara qofka inuu sharciga kula digsado odagaas oo ku tilmaami karo wax ma qarato isla markaana leeyahay wax hadalkiisu waa hadal bacaad lagu lisayo qolo oo ah iska hadaaqay hadalkiisa ma kantaroole isla markaana aan uga digino suxufiga caanka ah ee Soomaaliyeed ahna samafale aana la tigsan karin ahna haliyay u saayfaxay qaranka iyo ummadda Soomaaliyeed aanu leenahay aanu uga diginaa odagaas inaanu mar dambe aanu eedeen u jeedin suxufi Cabdimaalik Muuse Coldoon oo ah mid ku suntan horumarka iyo wanaagga ummadda Soomaaliyeed isagoona ku dhaliilay inuu yahay nimaan u dhalan odagana waxaan u sheegaynaa inuu ka wantay hadalladaas fanaxda leh odaga lafaantiisa oo sheegay jamciyadda SNM inuu ka mid ahaa balse aan history badan ee taariikh aan raacnay inaanu kaba mid ahaynba SNM uu iska sheeganayo odagaasi oo la sheego inuu meelana fanaafiqaya balse uu yahay oday caadaystay hadallada beenta hadallada caadaystay lidka ku ah shicibka Soomaaliyeed hadallada caadaystay lidka ku ah shakhsiyadda qof kasta oo muwaadin oo Soomaaliyeed odagaas oo la sheego inaanu control karin hadalladiisa isla markaa odaga waxaan uga digaynaa yiri waxaan ku dambeeyay jamciyadda SNM inuu xal iyo process siiyo suxufi Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon oo ku soontii bulshada inuu yahay suxufi Soomaaliyeed waana uga digaynaa odagaas xaalna waxaan doonaynaa inuu siiyo suxufi Cabdimaalik Sheekh Muuse Coldoon oo ah suxufi Soomaaliyeed guul Soomaaliyeed guul